iyadoo aynu ku guda jirno tobankii habeenay u dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaad arkaysaa dad iyo qulqulaya xagga masaajidada khaasatan xilliyada dambe ay hurdadu aadka u macaan tahay si ay u soo tukadaan salaadaha taajudka maadaama aynu ku guda jirno tobankii habeenay u dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan kaasi oo ku jiro habeenkii ka khayrka badnaa kunka bilood ama 83.3 sano dadka muslimiinta ahina ay la yimaadaan dadaalo dheeraad ah oo xagga cibaadada ah sida ka sugnaatay rasuulka عليه الصلاة والسلام أي تيفيق قرنك وحا وحالي بوقشة كتغي مساجد كعالمتان وكيا لا برتماها مقالة هرقيسا كاسيو أي كسوغنايان علماء الدين مسؤوليين دان يرو هاوين إيو وسيرو أي كميديهين وسير كارماء قدها علي محمد وران عده وسير كدان يرضي عيارها علي سعيد ريقل iyo sidoo kale maayar ku xigeenka magaalada Hargeysa Cabdi Casiis Cagaweyne kuwaasi oo dhamaantood ba u tagay si ay u soo tukadaan salaadaha taajidka sidoo kale qaar kamid ah culimada diinka iyo dhalinyarada ayaa iyagu ku ictikaafsan masaajidka calimataan ee magaalada Hargeysa sida rasuulka ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waxa kale oo arkaysa dad iyagu ku tukanaya masaajidku in ay ka kala yimaadeen xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa magacay waa Shaakir Abshir Cabdi waxaan ka maxaafad Jigjigeer waxaan masaajidka calaamataan inaan waajibaadkii lagu lahaa guto ummadda islaamkana waxaan Ilaahay uga barayaa inuu intii dhimatay naxariis janno ka waraabiyo inta cisbitaalada jiiftay walaaladeena bugtana Ilaahay ka dulqaado inta bukaan socodkana Ilaahay caafimaad siiyo inagana Ilaahay inooga daba naxariisto markaan dhimano taqadarka caawan faydo sidoo kale intii salaada lagu guda jiray ayaa waxa aad ka dareemaysay ama baad ka dheehanaysay wajiyada qaar kamid dadka ku tukanaya masaajidka qeyro Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين haddaba daawadayaal waxaa muhiim ah inaynu dhammaanba tukanno salaadaha faralka iyo kuwa sunnaha ah una kacno salaadaha taajidka ah si loo nooleeyo loogana faa'iideysto tobanka habeenee u dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan oo ku jiro habeenkii ka khayrka badnaa kunka bilood ee Laylatul Qadriga ku xidhnaanshaha Alle iyo cibaadadiisu waxa ay bulshada u horseedaan barwaaqo iyo nolol wanaagsan adduunyada aakhirana janno isku soo wada duubo dad yowga reer Soomaaliland iyo muslimiinta adduunkuba waa kuwa Allah xusaya subhanahu wa ta'ala wa Ahmed Muuse iyo Maxamed Ciise adan telefishinka qaranka Hargeysa